haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan aanu ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee Soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso. Waxa barnaamijka soo diyaariyay Haaruun Macruuf. maxaa wax loo mucaaradaa maxay ummaduhu ku dagaalamaan sidee ayay ku xalliyaan khilaafkooda maxaase khilaafka Soomaaliya kaga duwan yahay kuwa dhaxmara dadyoga kale caalamka inkastoo ay colaadaha Soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeye waxa uu la bilowday dawladaha casriga waxay ahayd 30 sano ka hor markii ay burburtay dawladdii ugu dambeysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya wadankana ka wada talisa qaabka taladaas u shaqeynaysay haba lagu kala aragti duwanaaday haddaba maxaa keenay in colaadii la bilaabantay burburkii dawladdaas 1991 aysan weli ka dhamaanin meel kasta oo wadanka ah aafadeediina ay weli jirto iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dawlad awood buuxda lehna uu weli socdo haddaba colaadda xilligan jirtaa maxay u daba dheeraatay maxay kaga duwan tahay tii hore ee Soomaalida dhex mari jirtay marka dambana laga heshiin jiray jaamac Cabdullaahi Cigaal jaamac Gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta kana caawiya dawladda Soomaaliya barnaamijyada nabadda khilaafkeenu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha way saddex dhinacyadoo tusaale markaan barbar dhigno arrimaha dhaqanka oo kale Soomaaliya ilaa hadda wax ka soo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milkaha iyo wanaaga ka dhaxayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan meel kastoo Soomaaliyeed ba tagaysaa gabadha doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee fol madax loo haysto gudaha yani wax badan ma jiraan dhinaca dhaqaalaha waa ogtahay xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay meel kasta ka furay qabiil iyo waxa loo meeqo maamulna loo meeqo siyaasad loo meeqo dhinaca diinta waa ogtahay meel ka doonto sheekh kasta maanta Soomaaliya meel kastoo maro waxaad dhageysanaysaa culimo aan oo wada yaqaan dhinaca dhaqankana waa saas oo kale heesaha iyo meel kasta waa saas dadku maartay iyo abwaaniinta marka waxa isleeyahay mushkiladda ugu weyn Soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda iyadaana markii hore wax sababtay dadka Soomaalidu waxa la oran jiray 7 bilaane beela horis 7 shay oo mushkiladoodu ka jiri jirtay dawladnimada ka hor waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo Allahumma salli ala Muhammad hubka iyo fardaha waxyaabahaas isku leen jireen laakiin markii dawladnimadan casriga ah la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa la isku fahmi waayay kiiba horta mushkiladu ka bilaabantay dawladnimadina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura oo cadaalad darradii oo kale iyo maaragtay halku wax ka qaban lahaa faraha badan kiiba isbiirsatay aakhirkiina dawladnimadii dumisay inkastoo ay Soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha Soomaaliya sidoo kalena lagu doonayo in la helo dawlad shaqayso oo fulisa waxyaabaha asaasiga u ah mas'uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka Soomaalida ah haddana waxaa dhinaca kale Soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda Soomaaliya ay daba dheeraato waxaad maqashaa had iyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda Soomaalida daba dheereeyay maadaama ay yihiin dad wadaaga af dhaqan iyo diin haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba mise colaadda Soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda Carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka kala duwanaansho dhaqameed iyo afeed iyo diimeed way dhici kartaa in la isku qabsado oo qolooyin ay bidaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay afkoodii inuu afka ka fiican yahay waa wax dhici karo oo la isku qabsado hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas taariikhda Mareykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan Mareykanka waxaan ula jeedaa United States of America dawladaha midoobay ama gobollada midoobay yani reer Yurub baa soo duulay ay meeshan ay qabsadeen markay qabsadeen dad bay u yimaadeen dadkii way ka raayeen way baabiyeen waxay keeneen dadyo kale Afrika ka soo urursadeen xoog bay ku keeneen
markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka la isku haysto masalan Europe qudheeda timid baa waxay tiri hadda af German iyo af Talyaani iyo Faransiis iyo waxaas oo dhan way jiraan bal iyo Ingiriiska keebaan qaadanaa waa laga dooday markii dambe Ingiriiska ayaa noqday in la qaato ayagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato haddana waa lagu heshiiyey ma garatay yani dadyowgii kale oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay yani waa loo magdhabay waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada waxbaa la siiyey dhul baa loo ogolaaday inay iskaba degaan oo iyagoo isteedyada ku dhex yaalaan haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah maaragtay yeeshaan qolooyinkii Afrika laga keenay qudhoodii maaragtay waxaa loo aqoonsaday dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaragtay xuquuqdoodii loo soo celiyo ay ka mid noqdaan bulshada Mareykanka weyn marka yani way jirtaa habab badan baa yani ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada habab badan baa looga baxaa wadamada qaar waxay dhisteen maxkamado u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray Soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in la iska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo fikradaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo mise weli far ayaa ku godan Professor Maxamed Mukhtaar mar kale Soomaalidu runtii dagaalkooda yani xataa meesha uu ka bilowday inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo oran karin xabadii ugu horeysay maalintaas ay dhacday dunida kale waa la garanayaa masalan Mareykanka yani dagaalkiisa sokeeye yani statekan waxaa bilaabay South Carolina waa la ogyahay xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yiraahdo Fort Sumter annaga ka Soomaalidu ma naqaan xataa goorta bilowday haddaad eegtid 30 sano aan kasoo qaadno masalan 30 sano inay is haysteen anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka Soomaalida la isku wadayno nabadeynta Soomaalida shirweynayaal baa jiray oo la oran jiray shirweynihii nabadda iyo wada heshiisiinta gidigooda say u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan Soomaali ahayn taagan yani waxaa lagu shiri jiray meelo yow oo naqsasho loo tago meelo oo qaali ah marka aniga waxaan arkaa yani nabadeyntan oo la isku dayay 30 sano waxaa ka maqan tii oo Soomaalida ka maqan masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa dad gardarro waa in la keenaa waa in gar baa la kala naqsanaya soo lama jiro gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado waa in dadka garta hoogaan oo ay dadna garta ay helaan waa inay soo baxaan dad dambiiliyaal ah ogaatay waa in la helaa dad laga gardarayahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay 30 sano ilaa hadda ma hayno cid la yiri ama qof la yiri waa qofkan waa dambiile marka ma ogtahay haddii oo dambiilayaal aysan jirin gardarro aysan jirin gar aysan jirin hadda meeshii waxa weeye dagaalku wuu iska jiraya wuu soconaya waa gartay dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay colaadeenu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo laba yaqaano sidaas darteed waxba yeynaan dib u laaban iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano ka waran doodaas doodaasi sal fiican ma leh waayo meeshan dhaawac baa jira soo ma garani dad baa dhaawacsan marka dadkii dhaawaca la gaarsiiyay haddii la yidhahdo okay forget about wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno ya waxaa la weynayaa kalsooni baa la weynaya dadkii iskuma kalsoonaanaya laakiin in la iska dadaboolo oo maxaa idhaahdaa boogtaasi dusha laga dhadhayo dadkii kuma heshin karaayeen runtii dhibaatadii way jiraysaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage oo cilmi baaris badan ka sameeyay arrimaha Soomaaliya haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda colaadda ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka waxaan hordhigay su'aasha ah qiimeyntiisa inay 30 sano ka soo wareegtay burburkii dawladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiig u qobanayo colaadaasi weji kastaba ha lahaatee runtii horta adduunka wadamada dumay oo dawladaha dumay aan qaranjabka ku dhacay ma yara Soomaalidu marka dadna waa fahansan yihiin
dadna runtii ma fahamsana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo waad ka garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahamsanayn waxaa kaloo la gartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo iyadana waa la yaqaanaa iyo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeyay baa la ogyahay soomaalida marka runtii dadaalana naguma yareen oo hadde shirkii 91 waxtaa shirarkii u horeeyay Jabuuti lagu qabto Xasan Guuled Abdoon loo naxariista uu qaban qaabiyey shirarka kale ilaa Qaahira ilaa Itoobiya dhexdeeda ilaa maxaa dhahaa marar badan waa la shirahayay oo runtii Soomaalidu waxay inay dareensan tahay waxaan in si loo dhaamo waa jirtay kuwa qurbaha aad waa soo dadaalaya dadkooda ay kasoo warqabhayeen oo runtii waa la baabi'i lahaa haddaan dadkaas qurbaha joogay ka warqabin ganacsatadii iyagoo aan dawladna haysan bay xaaladaas adag sidii macnaha uga dhex noolaan lahaayeen dadkan dhaqaalahana gacanta uga hayn lahaayeen bay ku dadaaleen guud ahaan marka fabrikii ama maaragtay duntii ama nuxurkii shacabka Soomaaliyeed runtii ma dhumin waan noolaanay waa badbaadnay dadka qaarkiis markii wax yar dawladnimada iyo sharciga oo maaragtay xogaa liico xadoodaha reer galbeedka maaragtay sida la isugu dhexdaato laakiin Soomaalidu runtii sida loo jabay iyo sidii macnaha isku qaateen oo maaragtay dadaal kuma yarayn laakiin wixii ay haysteen oo isku hayay baa ka burburay qolada marka ceebaysan oo runtii cawrada noqotay waa siyaasiyiinta oo ku fashilmay inay fursadaha adduunka siinayaan ka faa'iideystaan jilaafooyinka iyo kuleylka iyo adduunka uga imaanayaan ay iska moosaan dalkaana ay daaweeyaan oo khilaafka iyo kala tagga iyo kala nidxumaanta iyo kala shakiga ay ka daaweeyaan oo waalid u noqdaan kuwaas way marka runtii kuwa dhibka u badan gaaray ama la oran karo haddii cid odaab iyo eedeynba waa leedahay ayaga lagu sheegi karo muddo ayaad hadda cilmi baarista ka shaqaynaysay Soomaaliya maxaa horseeday guuldarrada siyaasiyiinta ama hoggaanka Soomaalida runtii haddaad xataa fiirisid dadka siyaasadda galay oo ku fashilmay nooc kastay lahaayeen oo markii xataa maxamed siyaad barre dalka dawladdiisa ay dintay ganacsataa nin ganacsataa baa la yidhi isaga madaxweyne aan ka dhigano mid kaloo ciidan oo generaal ah ku qabsaday carta nin 20 sano wasiir ahaa baa la keenay maxaa la yidhaahdaa kadib nin ciidan ahaayo maaragtay jamaal ahaayo gobolna soo maamulay Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariistay baa la keenay kadib niman wadaadaayo diin ka soo jeedaa loo dhiibay kadib niman aqoon-yahano maxaa la yidhaahdaa dalka gudihiisa aan ka babixin baa loo dhiibay kadib niman qurba ka yimid aqoon-yahan oo ra'iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaal noqday runtii marka nooc kasta oo Soomaali lahayd hor siyaasadda gacanta waa loo geliyey badankooduna waxna waa dhaqaajiyeen oo hadde nin walba wuxuu ku daray haba yaraato oo maaragtay dee haba haaraamo oo la arko ay saameyntooda haddana guud ahaan meeshii laga filaayay runtii ma gaarin marka systemkaas dumay oo dhaqaalihii dumay oo waxaa dhan iswada biirsanaya amni darradu waxay keenaysaa in maaragtay maxaa la dhahaa dhaqaaluhu dumo dhaqaaluhu markuu dumo dhaqaal la-aan dhacdo waxaa dhacaysa culeyskii iyo baahidii badanaysa markay baahidu badato tartanka iyo wixii yaraayo la isku haystay badanaya taas waxay sii keenaysaa kooxaysiga wuxuu soo keenayaa in maaragtay xagjirnimada al-shabaabka waxaa dhalay dawlad la-aanta iyo burburka iyo gaajada dadkii beerka dhulka ku hayay oo aan waxba ahayn bay intay tababarteen bay ayagii oo mintiida soo jeediyeen marka barbarenka waxaa marka stateku dumo ama qaranku dumo sheekadu waa kulaatay dad dhaafay oo loo baahan yahay oo aragti siyaasadeed leh marka dadkan wax ka weyn baa kusoo baxay cid kaloo imaanaysa oo aan Soomaali ahayn in wax ka qabato la rabana ma jirto haddaba Soomaalidu maxay ka baratay colaadda daba dheeraatay iyo dhibaatada weli taagan Jaamac Cabdullaahi Cigaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta waxa uu leeyahay dadka Soomaalida waa looga horeeyaa marka ay noqoto in wax laga barto wixii hore u dhacay waxaad arkaysaa wixii dhacayay 30 sano korba maanta dagaal sokeeye qabaa'il siyaasad la isku laynayo dhiigii lagu balansanayo wixii la doono magacii la doonaha loo bixiyo ama kooxda magacyadii berigaa la bixin jiray kuwa hadda waxay ku kala duwan ma jirto xoolaha geela iyo arigu markay marayaan meel ay hadda ka hor bahal ku arkeen way dhigahay taagaan iyagoo aad u feejigan bay maraan meeshii waxay ogyihiin hadda hal ka hor bay bahal ku arkeen Soomaalidu wixii dhibka u keenay unbay habeen iyo maalin sidii u sii wadaa markaas waxay rabtaa wax ka duwan
inay hesho oo nabad ay hesho qofku markuu tooso subaxii kuma fikirayo war waxaan xalaal ahayn ha cunin because xaaraanta hore ku baabisay war waxaan cadaalad ahayn ha xukmin oo ha taageerin waxaan xaq ahayn ha taageerin because horaad ugu soo jabtay xaq daro waxyaabaha markaa mushkiladda dhaliyay iyo waxyaabaha sii wadaana way kala duwan yihiin oo waxna waa wixii mushkiladda ka dhalatay tusaale ahaan imika waa naga tilmaamay siyaasad xumo iyo maamulkii oo la fahmi waayo oo la wadi kari waayey oo lagu fashilmay ka dhalan laakiin maxaa mushkiladda sii wada baad leedahay 30 sano waxa sii wadaya hubkan faraha badan ee dadka gacanta u galay waxa sii wadaya maamul la'aanta iyo dawlad la'aanta iyo nidaam la'aanta Soomaaliya meeshii nidaam ka jiro waxaad moodaa waxoogaa wax daba qabasho leeyahay waxba wali xataa qofku de hadaan hubkii gacanta ku haysan reerkii waxa laga yaabaa inay maxkamadii tagaan laakiin marka aan meeshii nidaam kale jiro qofkii wax kale u muuqan qorigiisii unbu ku cararaya marka nidaamkaas maqan ayaa mushkiladda ugu badankeeda u aabaa marka sidee ku soo laaban kartaa dawladnimada waxyaabaha maalmo dhaweyd soo baxay waxa kamid ah in qiimeyn lagu sameeyay dhinaca amniga Soomaaliya oo amisom iyo wixii laga yeelay waxyaabaha la sameeyay meelo badan baa lagaga dooday arrintaas waxyaabaha la sheegay ugu weyn waxa weeyaan anigu aan runtii isweydiiyay mushkiladan ay isku canaanadayaan caalamka ilaa UN baa sidana amisom baa sidana qofkan la mushkiladiisa la isku canaananaya isagu muxuu yahay Soomaaligu muxuu yahay hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka Soomaalidu maxay iyagu u noqon waayeen kuwa isku canaananaya inta mushkiladooda cid kale isku canaananayso oo cid kale isku turturaysa leedahay anaga ku fashilinay anaga ku fashilan iyagu maxay halkay jiraan marka waxa weeyaan waa nasiib darooyinkay kamid tahay marka sidee loo heshin karaa aniga waxa ila tahay waxa ugu weyn horta ummadi waxa heshiisiye hogaanka shacabka caadiga ah colaadna ma keenaan nabadna ma keenaan si kasta u dadaalaan laakiin waxa madaxa isugu dhufta ama wanaag dhexdhiga waa hogaanka weyn hogaanka Soomaaliyeedna wax lagu la xisaabtamaa ma jiro nidaam lagu la xisaabtamo adag ma jiro laba waxba Soomaalidu ay aad u danaysaa waxa la yiraahdo kalsoonida in wax ku kalsoonto tusaale ahaan imika inagu xawaalada nidaamka xawaalada oo kale nidaam adag oo system oo dhaqaale oo sida shuruucda bangiyada caalamka ka jira ma laha laakiin waxaan ku aaminaad $2,000 baa u dhiibaysaa mesela 9-adii oo kale in daaqad ka soo jeeda waxaad leedahay hooyaday tuure heblayo joogta magaceedo saddexan qabiilkeeda u sheegaysaa 2 cisho kadib bay hooyo kula soo hadlaysaa iyadoo ku ducaynaysa nidaamka noocaasa amaana dhalay laakiin had marka la eego shuruucda iyo waxay ku socdaan waxa laga yaabaa shuruuc badan iyo waxba badan ma jiraan marka waxaan uga socdaa Soomaalidu waxay u baahan yihiin hoggaan ay ku kalsoon yihiin waxay u baahan yihiin nidaam ay ku kalsoon yihiin inta kalsoonidaas maqan tahayna waxba lama dhisi karo meel kastoo kalsoonida ama oday dhaqameed lagu kalsoon yahay jira xitaa way ka nabad badan tahay meelaha kale marka shay kalsooni la yiraahdo ayaa aniga isleeyahay waxay u tahay buddig u ah mushkiladda Soomaaliya waxay xilligan maraysaa marxalad kale oo kala guur ah halkee ayay Soomaalidu uga dhaqaaqi doontaa isgoyska ay taagan tahay sida ay aqoon-yahanadu isku raaceen siyaasadda ayaa ah tan shakaashay isbedel inuu ka dhaco wadanka laakiin hogaamiyaasha wadanku xilligan ma wada fahamsan yihiin filashada dadka shacabka ah sidee ayayse u sixi doonaan siyaasadda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo